بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته guddiga doorashooyinka guddiga qoondada haweenka salaadiinta ee sharafta leh iyo musharaxiinta cusub iyo musharaxiintii horeba dhamaantii waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacayga waa Munu Cumar Xasan hooyadayna waa Farxiye Maxamed Xasan waxaan ku dhashay magaalada Burco gobolkii Ragga Togdheer ayaan ka soo jeedaa dugsigayga hoose iyo dugsigayga dhexe waxaan ku soo qaatay magaalada Burco jaamacadda iyo dugsiga sarena waxaan ku qaatay magaalada Muqdisho waxaan ku barbaaray magaalada Muqdisho noloshaydana waxaan ku qaatay inta badan magaalada Muqdisho aniga ma maqlaysiin okay waxaan waxbarashadayda ku soo qaatay inta badan dugsigayga hoose waxaan ku qaatay magaalada Sheekh dugsigayga dhexe iyo ka sarena waxaan ku qaatay ka dhexe waxaan ku qaatay Burco Sheekh Bashiir School leeyahay dugsigayga sare iyo jaamacadda Simadna waxaan ku qaatay magaalada Muqdisho labadii kun waxaan ka bilaabay shaqo magaalada Muqdisho shirkad warbaahin oo la yiraahdo Horn Afrique 2007 ayaan ka tagay waxaanan tagay radio Muqdisho telefishinka qaranka ayaa shaqo ka sii bilaabay 2011kii 2016kiina waxaan noqday senator matala gobolka Togdheer ee gobolkii Ragga inta waxa ii dheer 4 sanadood aan joogay senatarnimada markaan iska daayo waxaan la shaqeyn jiray xuquuqul insaanka waliba qaybta haweenka iyo caruurta ayaan in badan ka shaqeeyay waxaan la soo shaqeeyay saxaafadda oo markaa dhibaatadeedu ay badnayd ayaan in badan ka soo shaqeeyay takhasuskayguna waa journalism ma doonayo inaan idinku idhaahdo waxaan sameeyay daara dhaadheer ma doonayo inaan idinku idhaahdo waxaan ahay professorad mana doonayo inaan idinku idhaahdo badan malab ka dhigaya laakiin waxaan leeyahay salaadiinteeda sharafta badan leh 4 sanadood hore waxay noqotay tababar aan ku bartay siyaasadda 4 dambe waxaan rabaa inaan wali ku matalo magaaladii ama gobolkii Togdheer hadii ilaahay ka dhigo si sharaf iyo karaamo iyo ciise waxaan idin ka codsanayaa hadii aad ii garataan codkiidna mar labaad inaad siisaan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh